maalinta ka dambayso wax maskaxdeena yacni ka weyn ayaa maqlaynaa. Sheekada shiiqaan oo soo qaaday heesta waa shiiq magaciisa waxaa la dhahaa Mashaari. wuxuu u dhashay wadanka maxaa la dhahay Kuwait. waa qaari yacni oo 114 quraanka maxaa la dhahay aqriya. youtube-ka hadda ku qortid shiiq Mashaari uu ku soo baxaya maxaa la dhahay page-kiisa quraanka ah. yacni waa shiiq cod macaan oo weligiisa quraan lagu kasaayay laakiin anaashiidna soo qaadi jiray oo hadda ka hor wuxuu soo qaaday anaashiid la dhaho ma akhliha illa salaatii oo salaada ka sheekeynaysa anaashiid yacni wuu qaadaa. aniga hadda heestan uu soo qaaday shiiqan dadka dhan ayaa la yaaban. soo aniga waxaa is dhahay macquul ma ahan shiiq oo xaafid quraan ah oo yacni codkiisa quraanka lagu bartay inuu hees soo qaadayo. laakiin markii baaritaan aan ku sameeyay oo qof kasta maxaa la dhahay fikirkiisa aan dhageystay xitaa asaga xitaa fikirka aan dhageystay oo afkiisa aan ka maqlay yacni in uu soo qaado hees uu ku karbaashayo maxaa la dhahay Iiraan uu dhahayo tabbat yadaa Iiraan walli maca Iiraan. yacni Iiraan iyo gacanteeda iyo wax kastoo maxaa la dhahay Iiraan maxaa la dhahay la socdo uu ku karbaashayo إحنا أهل توحيد يعني ذاتك توحيد كشهادة نهاي وكأمانة السعودية محلها قليش كودن. لكن وأذينا إيران بس ذاتك يقولون ويابين وحليهن شيء السداو كل عذاب محلها إن ويعني إيران بس وعم باريو ما دام أسق وذات يهاي وسنقف سياسي هين ومدحوين هين وحاسولن إشقاء شغل وسن كل هين waxay ahayd in uu maxaa lahay Iiraan iyo Israa'iil waxa uu cambaarayna wax kasto qof kasto dhibaato wado. Israa'iil dhibaatada ugu weyn bilowday iyo America wuxuu ugu dari waayay dadka dhan intaas isweydiinayaan. waa la yaabay muslimiintii oo dhan argagaxa ku dhacay heestan markuu shiiqa soo saaray ilaa i hadda la yaaban yahay inkastoo shiiqa uu soo hadlay uu ka soo hadlay maxaa lahay falkan uu ku dhaqaaqay. wallaahi culimada Sacuudiga ilaahuna astur maalinta ka dambaysa shiiq isbedelaya maqlaysa. hadda ka hor shiiqa maxaa la dhahay oo asagana maxaa la dhahay mu'addanka ahaa xaramka oo tujin jiray wuxuu ku biiray qolooyinka filimaanta. magaciisa waa ilowsanahay insha Allah shiiqasna waa raadinaya sheekadiisu. wallaahi maalinta la ii sheegay tan maanta maqlay waa iiga darneedbo sababtoo ah waxay ahayd waxyaalaha ugu naxdinta badnaa oo iigu horeeyay oo wadaad yacni qof wadaad ah oo beedka Ilaahay waxaan ku dhahay tujinayay aan ka maqlo maalintaas shooga igu noqotay 2 sano 3 sano ka hor ahayd oo maleena sheekada. waa raadin doonaa shiiqaha magaciisana waa raadin doonaa. xitaa Sheekh Sudays hadda waxaa lagu eedeynayaa in uu maxaa la dhahayay lagu eedeynaa ma ahan ba uu yahayba uu Israa'iil la jiro sida ay dawladda ee Israa'iil maxaa la dhahay Sacuudiga inkastoo hadda ay sidii hore u taageerin laakiin in uu u duceeyo Israa'iil ayaa lagu eedeynayaa asaga naftirkiisa. shiiqan Mashaari la dhaho oo Kuwait u dhashay hadda markii heestii uu soo qaaday oo dadkii dhan qaracan ku dhacay lisla wada qayliyay media uu soo fariistay wuxuu dhahay maxaa la dhahay waa raaligelin uu ka bixiyay. aniga markaas aaminay inay hees tahay laakiin inta ka horreysay waxaan is dhahay amay anaashiid tahay sababtoo ah horeeyo anaashiid u soo qaadi jiray dhowr anaashiid u soo qaaday maxaa la youtube-ka ku jiraan anaashiidka oo Sheekh Mashaari hadda ku qortaan ama qiraa'ada oo Sheekh Mashaari oo quraanka hadda ku qortaan intaba way idin soo baxaysaa. asaga yaab hadda wuxuu la soo fariistay heestii aan soo qaaday bismillaahir rahmaanir rahiim heestii aan soo qaaday oo Iiraan aan ku eedeynayo waa ka raaligelinayaa waa ku qaldamay yacni maxaa la dhahay wallaahi waxaa waay oo maskaxdeena ka weyn. marka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala maxaa la dhahay qaatumada ha noo toosiyo. dhowr bilood ka horeeto video shiiqaas asagoo maxaa la dhahay tagay Ingiriiska dalxiis u tagay oo baabuur yacni oo cajiib ah ku socdo baabuur waliba gadaal loo fuula gadaal looga baxaa yacni moodalku u samaysan yahay oo cajiib ah oo ku labisan maxaa la dhahay dharka sportiska. soo markaas dadka horta waxay ku bilaabeenba shiiqu isbedel rabaa. dadkana maxaa la dhahay carabta Soomaalidu way ka daran yihiin ayaga naftirkooda falanqada iyo dhaleeceynta waxaa waay wax yar hadii lagu arko isbedel waxaa waa laga soo shidanaa. markaas waxay bilaabeen shiiqu isbedeli rabaa shiiqa labiskiisa daya shiiqa maxaa la dhahay soo hadda muxuu keenayba inuu soo heesaba hadda heestii ugu horeysay way
waana sugaynaa heesa kale hadduu soo qaado wallaahi yaab waaye maxaa la dhahaye wax lala yaabo waaye saraxatan oo maskaxdeena ka weyn marka culimada sacuudiga horta sacuudiga dhan wuu isbedelay oo yacni fitna ka socota sacuudiga dumarkii waxaa la hadaa rabtaan isqaawiya qamriga caba wax kasta fariya laga dhigay culimada qofkii yacni maanta diinta ku adag qoortaa la qabanaa xabsiga dalaq la siinaa qofkii kaleeto oo la fasahaadin kara culimada naftirkooda waa la fasahaadinoyaa hadda sheekh dhan oo caalim ah oo xaafidul qur'aan ah inuu meel lasoo fariistay heesaan soo qaaday hadda walba inuu dhahay ahayd anaashiida ahayd bahashaan maxaa la dhahay iiraan haddaa ku qaldamayna ha layga raali noqdo laakiin hees inuu asaga naftirkiisa uu ugu qirtay dembiguu galay marka qof allaala qofkii la bedeli karo mujtamac waa la bedelay shacabka waa la bedelay maskaxdoodii maxaa la wixii la fasahaadin karo waa la fasahaadiyey wadanka wallahi sacuudi carabiya horta kharaab weyn ka socdo as'al allah alcadiim rabb alcarsh alcadiim an yaslahum yaa rabbi ilaahay ha aslaxo sababtoo ah qiblada oo waxaa waaye ummadda islaamka meeshay u tukanaysay meesha maxaa la dhahayay maanta dadka aan anaga aan ku dayanaynay waaye inkastoo diinta anaga aan naftirkeena u dhalanay sidaas ha noqoto waxa ka socdo yacni maxaa la dhahayay waxa oo maskaxdeena diidaysa waaye marka insha Allah biidinillah barnaamijyadan waan ka soo hadli doonaa sheeqas kaleeto asaga naftirkiisa maxaa la dhahayay oo jilaayga noqday oo asagana sheeq caan ah waaye asaga naftirkiisa insha Allah next video waan uga soo hadli doonaa ilaahay subxaanahu wa tacaala maxaa la dhahayay culimadii maanta oo caalimta ahayd oo anaga maxaa la dhahayay hoggaanka noo noqon lahayd hadday sidaas noqonayaan ilaahay anaga wadadoodana ma raaciyo videogana xaqiisa siiya sheer garay meel dheer gaarsiiya